habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada caawiya caalamka waxaan ahay Cabdiraxmaan Bidhaan wararkana waxa ugu waaweyn magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa bando buuxda lagu soo rogay oo 6 toddobaad kadib markii uu soo laba kacleeyay coronavirus warbixin dheeraad ah ayaan idinka haynaa xaaladda safmarka corona ee caalamka warar kalena waxa ka mid ah goobaha nasashada iyo baashaalka ayaa goobaha ay xayiraadda COVID-19 aad u saameysay caalamka oo dhan dalka Kenya ayaa imka si tartiib u furaya goobahaas waxa kor u kacay ciyaarta internetka waqtiga lagu jiro safmarka corona waxaanu caawa la kulanay hablaha laacibiinta ah ee u dhashay dalka Iran kala socod BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkan waa BBC London caawiya caalamka waxaan ku bilaabanaa dalka Australia 5 milyan oo qof oo degan magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn Melbourne ayaa xayiraado iyo bando lagu soo rogay qaadan doona 6 toddobaad oo ka bilaabmaysa Arbacada tani ayaa imanaysa kadib markii kiisaska koronuhu ay xalay tole u kaceen aad halkaasi mas'uuliyiinta ayaa iyagu isku dayaya inay ka hortagaan faafista viruska dadka ayaa loo ogolaan doonaa inay guryahooda ka baxaan markay shaqo tagayaan ama dugsiyada tagayaan ama meelaha daryeelka waxa kale oo la xiray xadka labada gobol ee Victoria iyo New South Wales u dhaxeeya cidda lagu helay inay jibinayaan awaamirtan ganaax culus iyo xarig ayaa la isugu dari doonaa Australia ayaa ahayd wadan aanu aad u yeelin COVID-19 markaad u eegto tirada dadkooda 8700 qof ayaa laga helay 106 qofna waa ay u dhinteen waa kan gudoomiyaha gobolka Victoria Premier Daniel Andrews oo ka hadlaya xaaladda tani sidaan ogahay waxay ka fog tahay intii markii hore balse marka dhinacyo badan laga eego waxaan hadda taagannahay xaalad ka adag kana khatarsan sidii ay ahayd bilooyin ka hor wadanka ay Australia dariska yihiin ee New Zealand ayaa isaguna si kumeel gaadha u joojinaya dadkooda dibadda ka soo noqonaya wadanka ku soo laabanaya dadka New Zealand u dhashay ayaa awal ay ahayd in 14 cisho karantiima in la galiyo markay dalkaasi ku soo noqdaan laakiin imika meelihii dadka lagu hayay ayaaba buux dhaafay usbuucan kaliya waxa la filayaa 3500 qof oo dalkaasi u dhashay inay wadankooda dib ugu soo noqdaan dhanka kalena madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa isaga laga helayba COVID-19 kadib markii ay xumadu isku arka iyo qandha ayaa madaxweynuhu uu isbaaray madaxweynahan ayaa markii hore isagu hoos u dhigi jiray khatarta viruska Brazil waa dalka labaad ee kiisaska ugu badan iyo dhimashada ugu badan ba caalamka laga helay ee aad u saameeyay COVID-19 ganacsiga dalxiiska ee daafaha dunida waxay ka mid ahaayeen qaybaha uu viruska koronuhu aadka u saameeyay dalka Kenya hoteelada iyo makhaayado badan ayaa xidhnaa waqti bila gaaraya imikase si tartiib ayaa loo furayaa inkasta oo shuruudo adag lagu soo rogay oo ay ka mid tahay kala fogaanshaha bulshada iyo xagga fayaqabkaba Aisha Afrax ayaa inoo soo jeedinaysa bilo badan oo ay qolalkan marnaayeen marti la'aan shaqaalaha oo inna la fasaxay inna lacag la siinayay kadib hoteelada Kenya si tartiib ah ayay u soo kabsanayaan bandowgii 3 bilood jiray kadib mid ka mid ah hoteelada ugu qaalisan Kenya The Villa Rosa Kempinski ayaa dib u furay mid ka mid ah 3diisa maqaayad hanaanka maqaayadu u shaqeyso sidii hore maaha meel kasta waxa ku qoran fariin ku aadan kala fogaanshaha bulshada meel gacmaha la isaga dhaqo heer kulka qofka oo la baaro iyo waliba in la xirto gafuur duub ayaa ku soo kordhay hoteelka waxa ila tahay in dib loogu noqdo sidii xaalku ahaa 2019 inaynu u baahannahay ilaa 18 bilood oo kale ugu yaraan waxa lagu heshiiyay ayaa ah in 2021 dib loo dhiso ganacsiga si 2022 ay xaaladdu ugu noqoto waqtigii COVID ka hor inkastoo hoteelada waaweyn sida Kempinski ay haystaan dhul baaxad weyn ayna dhaqan gelin karaan kala fogaanshaha dadka hoteelo badan ayaan taa awoodin in 1 mitir iyo bar ay u dhaxeeyaan miisaska iyadoo dadka isla fadhiyaana uu 1 mitir u dhaxeeyo waxay yareynaysaa tirada dadka ee maqaayada iman kara dadka ka ganacsada hoteelada ayaa xoog saaraya inay dakhli uun ka soo saaraan The Sarova Panafric waa hotel qaali ah oo isna ku yaala Nairobi 80 ka mid ah qolalkiisa ayaa hadda loo isticmaalaa sida xafiisyo
waxaan imid 8 subaxnimo waxyaabo badan ayaan qabsadaa ilaa 5 galabnimo deganaanta darteeda waxyaabo badan ayaan halkan ku qabsan karaa hal mar ama laba ayaan toddobaadkii sidaan sameeyaa ilaa iyo hadda Kenya waxay lumisay 50% lacagtii ka soo gali jirtay dalxiiska fayraska corona aawadiis taasoo qiimo ahaan gaaraysa 810 milyan oo dollar. This is a health issue, so it's important that we arrintan waa mid caafimaad waana muhiim inaan qaybteena ka qaadano dabcan waxyaabaha sida kala fogaanshaha bulshada xirashada afdaboolka iyo gacmo meyrista dhamaantood waa muhiim shirkadaha sidanoo kale ah ee inaad safartaad u baahan tahay si aad ugu raaxaysato fasaxaaga sidan kuma sii socon karaan lacag badan ayaa nooga lumaysa hadda waxaynu eegaynaa ganacsata ahaan waxa naga gelaya waxaan ku qasbanaan doonaa inaan qaadanno go'aano adag aan ka ahayn in si degdeg ah naloo furo haddaba Kenya ayaa gashay habka lagu khafiifinaya xayiraadahaasi COVID-19ka hadday tahay ganacsiga iyo haddii ay tahay isu socodkaba waxaan goor sii horeysay ka wareystay wariyaha BBC Ciise Xaaji Cabdulle oo ku sugan magaalada Nairobi waxaan weydiiyey bal wararkii ugu dambeeyay khafiifinta ku saabsan cabdiraxmaan dhammaan xayiraadii dalka saarneyd oo ahayd in muddo 4 bilood magaalada Nairobi iyo Mombasa oo cudurka aad ugu faafay ay kala xirnayeen magaalooyinka kale ee dalka ku yeelana aysan u kala gooshi karin Mombasa iyo Nairobi ayaa shalay madaxweynaha si tartiib waxa uu yiri waa la qaadayaa wixii maanta saakay subaxii ka bilowday magaalada Nairobi gawaarida way soo gali kareen laakiinse gawaarida rakaabka ee dadka qaadaya sida basaska ayaa waxaa lagu qasbay in ay warqad gooni ah ka soo qaataan wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda gaadiidka inay warqad gooni ah ka soo qaataan kuwaasoo u fasaxaya in ay soo galaan magaalada Nairobi dabcan waxyaabaha laga fiirinaya basaskaasi ayaa waxa ka mid ah in kuraasta ay dadka isu dhawaanin oo kala fogaadaan marada afka lagu xirto inay dadka ay u hogaansami doonaan iyo sidoo kale in basaska ay wataan sidoo kale saabuunta gacmaha lagu maydho iyo waxyaabaha jamska dilay in basaska laga heli karo ayuu madaxweynaha ku qasbay sidoo kale waxaa lagu daray 30 casho maalmihii bandowga haweenkii ahaa oo bilaabanaya 3 habeenimo ama 9 habeenimo ilaa 4 subaxnimo bandowgaasi isna 30 maalmood ayaa lagu daray goobihii cibaadada ayaa haatan muddo dhow ka hor lagu dhawaaqay in 14kan bishan aynu ku guda jirno masaajidada dib loogu noqon doono iyo kaniisadaha hase aatee waxaa lagu xiray in 100 qof oo kaliya ay si jamci ah ugu tukan karaan masaajidda ama goobaha cibaadada sida kaniisadaha 100 qof ka badan inaysan gali karin waxa kale oo madaxweynaha shalay ku dhawaaqay in 15 bishan waxay ka bilowdo diyaaradaha gudaha dalka ka howlgala in ay dib u bilaaban doonaan hase aatee 1 bisha Agosto ayaa waxa la ilaamiyay in diyaaradaha internationalka ama caalamiga ah ay dib u furmi doonaan waan gartay Ciise markaad eegto gobolkan waqooyi bari ee Soomaalidu ay ku badan tahay Kenya isaga xaaladiisu waa sidee waan ognahay inuu yahay gobol ka fog caasimadii oo de gaadiidkuna uu ku yara marka horeba tagaya sideeba gobolka looga dareemayaa xayiraadahan COVID-19ka gobolka waqooyi bari xaaladiisa way ka duwan tahay gobolada kale ee Kenya cudurka aad ayuu ugu faafay goboladan kale ee dalka Kenya ka jira hase aatee waqooyi bari magaalada kaliya ee tiro fara badan ee cudurka COVID-19 dadka qaba laga helay waxay ahayd magaalada Mandera ee maaragtay xadka taala ee Kenya iyo Soomaaliya marka muddo 2 bilood ah ayaa iyaduna xayiraad ay saarneed oo wax gaari oo gali karaan ka soo bixi karana uusan jirin shalay ayaa iyaduna laga qaaday oo madaxweynaha khudbadiisu ku sheegay in magaalada Mandera haatan la gali doono laakiinse waxyaabaha la ilaamiyay ayaa waxay ka mid ahayn Mandera haddii tirada dadka ay sii kororto qaba cudurka COVID-19 bidaan madaxweynaha waxa uu sheegay inaysan ka maarmi doonin in dib loogu celiyo xayiraadihii hase aatee magaalooyinka kale sida Wajeer iyo Garissa xaaladoodu way wanaagsan tahay dadkii iyo ganacsigii way isdhex socdaan oo dadkii way safrayaan hase aatee waxa walaaca qabaya waxay tahay Soomaalida meel walba ay joogto sida waqooyi bari hadda hadii aynu ku hadalno dadka qaarkood uma hoggaansamaan shuruucda kala fogaanshaha qaarkoodna bidaan waxay sheegayaan inaysan aaminsaneen cudurkan inuu jiro kuwa kalena waxay sheegayaanba inaysan u hoggaansameyn marada afka lagu xiranaya marka xaaladu sidaas ayay tahay waqooyi bari haatan
ciise xaaji cabdulle waa mahadsan yahay bal imkan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa mas-uuliyiinta jabaanka ayaa sheegay in mahigaankii sababay fatahaadaha waaweyn ee jasiirada koonfur galbeed ee dalkaasi uu dilay ilaa 50 qof shaqaalaha gargaarka ayaa raadinaya oo baadigoobe 10 qof oo kale oo la waayay waxaa la saadaalinaya roobab kaloo mahigaana dhulgo'a ayaa burburiyay guryihii iyo wadooyinkii 1.3 milyan oo qof ayaa lagu amray inay ka baxaan dhulkii ay deganaayeen hay'adda socdaalka ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay inaan ardayda muhaajiriinta ay sii joogi karin Mareykanka haddii ay jaamacadaha waxbarashadu u bedelaan internetka iyo online-ka in wax lagu dhigto waqtiga safarka lama garanayo tirada ardayda ay saameyn doonto 100,000 oo arday ayaa Mareykanka wax ka barta sanad walba degalka caanbaxay ee TikTok oo Shiinaha laga leeyahay fiidiyoyadana la isku weedaarsado ayaa sheegay inay ka bixi doonaan suuqa Hong Kong ayaama gudahood kadib sharciga ammaanka ee dawladda ay soo saartay Shiinuhu shirkadaha kale ee tiknoolajiyada oo ay ka mid yihiin Facebook, Google iyo Twitter ayaa iyaguna joojiyay inay qabtaan codsiga dawladda ka imanaya ee ah in la wadaago xogta dadka isticmaala adeegooda Hong Kong mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaas waad ka heli doontaan muuqaalo falanqeyn dheeraad ah wararka ugu waaweyn sida hesho wararka ugu dambeeya Soomaaliya iyo caalamka nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram weli waxa inoo soo socda waxaanu caawa eegaynaa hablaha dalka Iiraan oo aad u dhaxgalay ciyaaraha fiidiyoyada ah ee gameska la yiraahdo ee online-ka waqtiga waliba lagu jiro xayiraadaha soo dhawaada daawadayaal wali waxa daawanaysan caawiya caalamka iyo Cabdiraxmaan Bidhaan balan idin xusuusiyo qodobada caawa wararka ugu waaweyn magaalada Melbourne Australia ayaa bando buuxda lagu soo rogay oo 6 toddobaad kadib markii halkaasi uu coronavirus-ku ku soo laba kacleeyay dalka Kenya waxa dib loo furayaa ayar goobihii baashaalka makhaayadihii hoteeladii kuwaas oo xayiraad ku jiray bilihii ugu dambeeyay madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay shir isugu yimaadaan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug dhawaan si ay uga wada hadlaan arrimaha doorashooyinka iyo mustaqbalka siyaasadeed ee dalka waa markii ugu horeysay muddo 2 sanadood ay shir noocan oo kale ah isugu yimaadaan madaxdaasi waxaana uu soo beegmaya maalmo kadib markii uu qabsoomi waayay kulan madaxweyne Farmaajo ku baaqay oo ay ka soo qayb gali lahayn maamul goboleedyada haddaba si aanu ismariwaaga siyaasadeed u la fakurno waxaa khadka Skype-ka magaalada Muqdisho ku jira Dr. Xasan Sheekh Cali oo baraka ah jaamacadda ummadda kana faalooda siyaasadda Soomaaliya Dr. Xasan soo dhawow shirkii waa lagu baaqay khamiista ayuu dhacayaa la leeyahay maxaa laga filan karaa shirkan maamul goboleedyada Soomaaliya isugu imanayaan bismillaahi raxmaani raxiim ما مقلسة حسن دكتور حسن ما مقشة waxaan بسم الله الرحمن الرحيم shirka ay qaadanayaan madaxweynayaasha maamul goboleedyadu waa iskuul ah kuna waafaqsan yahay qodobka Soomaaliya faqadiisa koowaad oo dhahaysa maamul goboleedyada gudaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya waa inay yeeshaan iskaashi iyo wada shaqayn si loo xoojiyo midnimada qaranka taasi waa taasa waxaa la rajaynayaa inay soo saaraan wax ka farqeeya dadka Soomaaliyeed sida aad
قال طبعا سنة الرئيس رئيس الصومالية in dowladda dhexe iyo ay kala go'aan dowlad goboleedii markaa taasi ay isu qaadayaan goboladu oo ay siyaasadda Soomaaliya wada u bixinayaan waa wax fiican waxyaabaha laga sugayo waxaa kamid ah inay soo gudbiyaan aragti ku saabsan qorashada la sugayo golaha shacbiga Soomaaliya iyo hoggaanka Soomaaliya oo la sugayo sanadkan dhamaadkiisa khilaafaad fara badan oo ka taagan yahay gaar ahaan aqalka sare iyo golaha shacbiga Soomaaliya madaxtooyada Soomaaliya iyo xisbiyada isjiid fara badan oo kala jira oo labadii sano u dambeysay madaxtooyada Soomaaliya waxay ku guuldareysatay dadka Soomaaliya inay isu keento si la isu raacsiyo siyaasadda Soomaaliya marka arrimahaas aan rajaynaa in lagu xaliyo xal oo gaaro sabab la doonayo insha Allah waa gartay Dr. Xasan laakiin se waxyaabaha isku raacaan ma kula tahay inay fuli doonaan oo markasta Soomaaliya shirar baa ka dhaca markasta maamul goboleedyada shirar markasta xisbiya shira laakiin inta badan ma fulaan shirkan ma kula tahay waxa ka soo baxay inay fuli doonaan sida aad la socotaan Soomaaliya waxay dooratay inay noqoto waddan federaal awooddan waa la kala qiimiyay waxaa loo qiimiyay laba heerka dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya yahay kooban laba aqal heerka federaalka ilaa hadda ay leedahay Soomaaliya shan maamul marka dowladda dhexe waa qaybsan marka laga yimaado afar shay dowladda dhexe ay leedahay waa ka baxan inta kale waa in laga wada hadlo marka haddii ay madaxtooyada Soomaaliya ay intay go'aan gaaraan dowladda Soomaaliya madaxtooyada Soomaaliya kolka waxay noqonaysaa madaxtooyada Soomaaliya inay ku guuleysatay shaqada loogu talagalay waa gartay Dr. Xasan khadka ayaa aad u raxun Muqdisho khadka Skype-ka ayaa naga xumaaday oo codka saani looma maqlayo daawadayaasheedana waa ka raali gelinaya adigana waa ka raali gelinaya waa mahadsan tahay Dr. Xasan oo iga soo biiray magaalada Muqdisho bal imkan aanu gudubno wararka ciyaaraha caawa iyo Premier League Chelsea oo kaalinta afraad ku jirta ayaa u socdaali doonta Crystal Palace Chelsea ayaa badisay 4 kamid ah ciyaarood ee ugu dambeeyay Watford oo ku jirta kaalinta 17aad ayaa la ciyaari doonta Norwich City garoonkaasi Vicarage Road Norwich waxa ay guuldarro kala kulantay ciyaar kasta oo kamid ah 6 ciyaarood ee ugu dambeeyay Arsenal ayaa gurigeeda ku martigelinaysa kooxda Leicester oo kaalinta 3aad iyadu ku jirta horyaalka Isbaanishka ee La Liga caawa Atletico Madrid ayaa rajeynaysa inay xajisato kaalinta 3aad marka ay la ciyaari doonaan Celta Vigo Valencia ayaa sidoo kale iyaguna iska hor imanayaan doonaan kooxda Valladolid habeenkii xalay ahaana kooxda kaalinta afraad ku jirta Sevilla ayaa garaacday kooxda Eibar hal iyo eber kadib markii Lucas Ocampos uu gool dhaliyay daqiiqadii 6 ciyaarta cricketkana England ayaa la xaqiijiyay inay martigelin doonto Pakistan waa 3 tijaabo oo bilaabmaysa oo ciyaarood 5 bisha August ciyaarta koowaad ayaa ka dhacaysa garoonka Old Trafford ee magaalada Manchester ka hor 2 ciyaarood ka dhici doona iyaguna Southampton dhammaan ciyaarahaasi ayaa iyaga lagu ciyaarayaa garoomada oo dhammaantood madhan bal imkana dalka Iran ayaynu eegaynaa dalka Iran ciyaarta gameka muuqaalka ee video gameska waxyaabaha loo yaqaano ayaa waxay noqotay mid safarka ka hor xitaa aad u caano oo dad badan ay xiiseeyaan oo dad badan ay ciyaaraan laakiin se imika oo lagu jiro waqtiyadan xayiraadaha safarka waxay noqotay in la sii xiiseeyo waxaa jira hablo badan oo iyo waliba haweenaan iyaguna ciyaara caqabado badan ay la kulmaan laakiin se gabdhahaasi aadan maxamed saalimiin ayaa warbixintan ku eegaya dunida dhabtahi waa ay taagan tahay laakiin adduunka ciyaartu si dhaqso leh ayuu u socdaa intii lagu guda jiray safarka muuqaalada gameka ee online-ka waxaa si aada sare ugu kacay ciyaaryahanada cusub oo ay ka mid yihiin kuwa ka socda bariga dhexe ciyaarta gameka ee haweenka Iiraan ayaa door muhiim ka gashay kororka suuqa من نیلوفرم 23
nilovar oo loo yaqaano magaca inilof waa xirfadle ciyaarta gameka ee online-ka waxaana ay leedahay 30,000 oo taageerayaal ah waxaana ay heshaa $2 ilaa $300 bishiiba. inkastoo ay ka badan yihiin 3 meelood oo meel ciyaartoyda dumarka ee Iiraan waxa ay la kulmaan caqabado badan. ma haysana kombiyuutarro casri ah oo game lagu ciyaari karo. wiilashu waxay aadi karaan xarumaha gameka lagu ciyaaro, kombiyuutarro wanaagsan ayaana yaalo, laakiin gabdhuhu waa inay si dhuumasho ah ku tagaan. aad ayayna u adag tahay. taasi waa ay ka badan tahay caqabada Nilofor haysataa. dhab ahaantii waan jeclahay ciyaarta gameka, laakiin haddii aan wax uun ku tuso, tani waa xaaladda internetka dalkan. inaad gasho adeegyada socda ciyaartoyda Iiraan waa inay ka gudbaan cunaqabataynta caalamiga ah iyagoo adeegsanaya shabakadaha gaarka loo leeyahay ama VPNs. mararka qaar waxaa dhici karta in dawladdu ay damiso internetka oo dhan muddo toddobaad sida dhacdayba sanadkii hore. qaar ka mid ah ciyaartoyda dumarka ah ayaa horay uga tagay Iiraan, xaqiiqdiina kuwa ugu guusha badani waxa ay ku sugan yihiin dibadda. Kozari Aziz oo sidoo kale loo yaqaano Toxigel ayaa isaga tagtay Iiraan sanadkii hore si ay sare ugu qaado gamekeeda. uma malaynayo in wax tayo ah ay u dhaxeeyaan wiilasha iyo gabdhaha. sababta aan ugu tagay Iiraan waa inaan horumariyo xirfadayda 100%. halkan shirkadaha qaar ayaa shaqo i siiyay. fursadaas Iiraan kama heli lahayn. si kastaba ha ahaatee muhaajirnimadu xal uma aha dhammaan dhibaatooyinka haysta ciyaartoyda dumarka ah. markaan online ku ciyaarayo dadka waxay ii sheegayeen inay been tahay oo aanay jirin haween game ku ciyaara Iiraan. dadku waxay ku leeyihiin orodoo nin raadso, ku ciyaar boombalada ama orodoo alaabta dhaq. xadgudubyadaas ayaa saameyn igu reebay. inkastoo uu cadaadis uga imaanaya bulshada, Nilofor waxa ay qorshaynaysaa inay samayso suuqa ugu kobaca badan waxaana ay hiigsanaysaa heerka xiga. iminkana bal xagga cilmigii hore ayaan u gudbaynaa taariikhda hore. culuntii hore ayay waxay sameeyeen daahfur xiisa leh oo ka dhacay dalka Mexico. bal nala eega sida macdanta loo baadhay. mugdi dhexdiis iyo boqortooyada biyaha hoostooda ee Mexico, halkani saynis yahanada ayaa rajaynaya inay helaan xog tilmaamaysa taariikh hore, waana ay sameeyeen. kuwa biyaha dhex quusa ayaa helay god si wanaagsan loo ilaaliyay oo cadaynaya macdan qodis 12,000 oo sano ka hor. waxa runtii la yaabka leh ee ku saabsan goobtan ayaa ah ilaalinta. waa wax naadir ku ah cilmiga raadraaca. si loo helo waxqabadka aadanihii qadiimiga ahaa waa in si wanaagsan loo ilaaliyay. waxa ay heleen qalab hore, cadaymo godadka dabka iyo calaamado qoditaan oo farshaxan. dhoobada casaanka ah oo ay inta badan u isticmaali jireen xafladaha iyo farshaxanka dadkii ugu horreeyay ee dega Amerika. saacadihii badnaa ee lagu bixiyay waxyaabaha ku jira biyaha hoostooda waxay iftiin u noqotay qabiilooyinkii hore. laakiin sida saxda ah ee ay waqtigooda ugu qaateen god hoose lama yaqaan. gabagabadii caawa waxaan idinkaga tegayaa muuqaallo goob soo jiidanaysa adduunka dalxiisayaal badan. waa orodka dibida Pamplona oo dalka Spain, laakiin imika waa la joojiyay. waxa weeyaan waa markii ugu horreysay tani dhacdaba la leeyahay dagaalkii sokeeyay Spain oo halkaasi la joojiyo. waxa yimaada kumayaal dalxiisayaal sanad walba si dibidu ay u ereeyato. imika dad yarba laakiin garoonkii soo istaagay oo aad arkaysaan rag baa weli sita dharkii casaba kuwa dibidii oo dadka ereyanaya. dibiguna haddii uu arko maracas kaama hadhaya baa la leeyahay. sida aad arkaysaanna dad baa caalamka meelo badan uga soo dhoofa oo iyagu dibigaasi inuu arko doonaya. waa arkaysaan kooxaha xayawaanka adduunka ayaa iyagu soo dhaweeyey in dibidii halkaasi laga joojiyey oo aanay imika dadka eryanaynin. xusuusnow wararkii ugu dambeeyey ee BBC Somali waxaad ka heli kartaan mar walba bbc.com/somali. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka caawiya caalamka anigoo cabdiraxmaan bidhaani. waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin daawashadiina. inta aynu mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo.